السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولالها وان سلامي سلام كبعدي codkani waa mid aynu ugu talagalnay in aynu ku gorfayno kuna soo koobno ku dul istaagno buugga uu qoray Dr. Cabdulkariim Bakaar. inta aynaan bilaabin buugga waxaan wax yar dul istaaganaa waa ay Cabdulkariim Bakaar. Cabdulkariim Bakaar waa nin Suuriyaan ah dhashay 1951 kuna dhashay Ximis. marka la eego iyo dabcan iyadu ku koray wax ku bartay طبعا marka aqoonta la eegana baccalaureaski iyada waxaan leeyahay wuxuu ku diyaariyay jaamacadda Azhar buu ka diyaariyay sanadku marka 1973 sidoo kale masterkii marka baccalaureasku luqadda ahayd luqadda Carabiga iyo ku takhasuskeeda masterkina 1975 buu wuxuu ka diyaariyay isla Azhar موضوعه uu ku diyaariyay aslu luqa ama luqadda iyo luqadda Carabiga iyo asalkeeda ama si guud luqadda asalkeeda PhD iyo doctoraadiina wuxuu ku diyaariyay falsafada sanadka markuu 1979 inta dabadeed laba qodob baan codsan lahaa intaanan bilaabin buugga iyadana markaan doctor ka baxay kadib qodobka koobaad waxa aynu akhriyano ay soo khulaasayno buugga doctorka bal in aynu ku eegno oo waaqicina aynu uga qiyaas qaadano akhris kasta iyo qaab kasta sidoo kale de waa buug korfayntii iyo khulaasadii oo muhiimadiisu leeyahay in aynu ru'uusul aqlaam ka qorano ama bunuuda iyo maxyala ugu waaweyn inta marka ay maado doctorku wuxuu ku bilaabay bani aadamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala in uu ku abuuray inuu markasta jecel yahay inuu wax cusub oo ogaado wax aan hore u ogaa wax aan ahayna inuu kordhisado inaanu dhargeynin bani aadamku ilaa iyo uu helo wax cusub kadib waxa uu tilmaamay aqoonta laftirkeeda waxyaalaha keenaya inuu qaaday in wax barano in aan wax akhrino afar shay inuu qaaday buu soo qaatay qodobka koobaad waxa uu ka dhigay aqoonta laftirkeeda ayaa isugu baaqasa in aqoonta la badiyo la barto la waayo qofka aqoonyahanka ah ee ixtiraamaya thaqaafadiisa culture-kiisa dhaqankiisa mabaadi'diisa waa qofka cusboonaysiinaya xogihiisa qodobka labaad bariyihii hore may jirin shaqooyinka qaar ku xidhan inuu qofku aqoon yeesho laakiin hadda shaqooyinku inta ugu badan marka laga yimaado shaqooyin iska basiid oo aan muhiimad taas lahayn intooda ugu badan waxay ku xidhan yihiin qofku inuu aqoon leeyahay taasina waxay keenaysaa qofku inuu aqoonta ku dadaalo qodobka saddexaad waxyaalaha maanta aynu haysano oo aqoon ah oo ay aragnimooyin ah iyaga laftirkoodu ma laha qiimo sii deysan marka la eego wax weeyaan ummadda caalamka islaamka ah iyo aqoon daradaasi inay u soo jiiday dhibaatooyin fara badan inay u soo jiiday oo marar badan aanay diintooda islaamka wax badan ka garaneyn ama iska daa inay wax badan ka gartaan ay si khalada isu moodsiinayaan ba waxyaalo aan jirin qodobka afraad aqoontu bani aadamka aqoontiisu way is cuntaa haddii aan la korin oo aan la cusboonaysiin dadkeeni wanaagsanaa aqoonyahanka ahaayee ummaddeeni islaamka ahayd inoo soo shaqeeyay diintan u soo shaqeeyeen waxay oran jireen ama waxa bay sameyn jireen ninka ama inanta aqoonyahanka ah caalimka ah cilmigiisa laguma kalsoonaan jirin ilaa iyo uu safro oo magaaladaas waddankaas uu joogo daraan u safro qodobka shanaad ee inoogu yeedhaya ama inoogu qaaday in aynu aqoonta ku dadaalno waxa weeyaan macrifada iyo aqoonta iyo knowledge-ka horumarka la yaabka ay ku jirto qaar ka mid ah cilmi baarayaasha ayaa waxay dhaheen duqownimada iyo odaynimada ama islaamnimada ama qofku inuu gabowgo aqoontana uu galaabay dhaheen waxay dhaheen sanadkii kastaba 10% wixii ay naqaanay isbedel baa ku dhacay cusboonaysiin baa ku dhacay موضوع عمر كبح دكتوركو waxa uu gudbay mowduuc ugu magac daray akhriska iyo ilaha aqoonta wuxuu sheegay in ay aad u farbantay meelaha bani aadamka maanta aqoonta ka qaataan wuxuu markaa aad u dul istaagay warbaahinta oo uu tilmaamay laba qodob oo mashaakil ku leedahay koow akhriska dadka iyo wixii qornaayo yar oo aan lagaga mashquulin marka hadii yani wax badan qoran yihiin oo buugaag badan ay jiraan oo qoran sidoo kale ay jirto dhaqan caan ah oo ah in ummaddu aad wax u akhrido
dadku ay ka mashquul lahayn warbaahinta kuma mashquuleen qodobka labaad ee khatarteeda tilmaamaya waxa weeyaan habka quruxda badan ee loo diyaariyay yani qofku maanta warbaahinta isticmaalaya ama andhahe social media isticmaalaya kama daaliyo tusaale waxaa jirta qaacida ay ka duulaan qolyaha tviyada oo ah 40 second ee kasta in la bedelo muuqaalka qofka u muuqanay ama wax ka yar qofku markuu saa u eego xogta in yar kadib waa la bedelaya xogta lagu hayo muuqaalka lagu hayo doctorku waxa uu soo qaatay caalamka carabta iyo qoraalka kadib uu tilmaamay buug kasta oo qoraa kasta oo qoray marka laga yimaado buugaagta caanka ah sida caadiga in laga daabaco 300 oo nusxo ama 300 oo koobi taasina marka loo eego reer galbeedku buuggii oo qofku qoray waxyaalaha laga daabaco wax la sawiran karo ama laga qiyaas qaadan karo ama la soo barbardhigi karo ma aha wax ceeb ay noqonayso intaa markuu ka yimi ayuu wuxuu u gudbay ciwaan ugu magac daray akhriska daraadii taasina wuxuu yiri haddii akhrisku muhiimadda leeyahay waxa muhiim ah inaan ku bixino maal wax alle iyo waxaan awood u leenahay iyo sidoo kale xilli waxaan awood u leenahay wuxuu gudbay ciwaan kale oo ugu magac daray waxyaalaha akhriska ka dhigaya mid bulshada ku dhex faafsan waxa uu tilmaamay qodobka koobaad ka dhigay inuu daafic jiro qof waxaan inuu qofku wax akhriyo wax ku qaadayo inuu jiro tusaale muslimiinteennii hore daafica iyo waxyaalaha ku qaadaya inay wax akhriyaan ayaa ka dhigtay ummad aad wax u akhrida isla arrintani maanta wadamada horumaray waxa weeyaan qodobada ay adeegsadaan waxyaalaha ku horumareen weeyaan qodobka labaad in la sameeyo dhaqan caado ama caado akhris in la sameeyo doctorku waxa uu tilmaamay bilowga qofku markuu akhrista ku yahay inay dhibaato ku tahay inuu wax akhriyo laakiin wuxuu yiri qofku ma caadeysan karo akhriska ilaa isagoo macaankiisa dhadhamiyo mooyaane qodobka saddexaad ee uu ka dhigay inuu qayb ka noqon karo in bulshada lagu caawiyo in uu ku faafo akhrisku in dadkani buugaagtii iyo kutubtii ay akhriyi lahaayeen loo fidiyo dadka qaar baa ka cawda buu yiri lacag uma helano dadka laba qodob baa haysta kow inay la yihiin oo inay garanayaan muhiimadda akhriska qodobka labaad inay biilkooda maareyn kari laayihiin qodobka afraad ee doctorku uga dhigay sabab ka qayb qaadanaysa akhrisku inuu faafo wax weeye in waqtigii wax la akhriyi lahaa loo qoondeeyo qofka wax u akhriyo oo wax u qoondeeyo mid ka mid ah dadkeennii wanaagsanaa baa nin u shaqayn jiray buu lahaa kadib ninkiiba wuxuu ku yiri wax alle waxaad ii soo sheegaysa intaan wax akhriyayay jirin hal shay ii soo sheeg haddii gurigan aan ku jirnaa uu gubanayo ii tilmaan markaan iskaga baxnay wixii ku jirnaan ka badbaadinay qodobka shanaad waxa uu tilmaamay doctorku inuu qofku markuu wax akhriyayo jawi akhriska ku habboon inuu wax ku akhriyo 5 qodob meelahaas ilaa 6 qodob oo taasi ay ku imanayso ayuu tilmaamay qodobka koobaad uu yahay in qolkaad wax ku akhriyaysa uu nidaamsan yahay ee aanu qol isaa isugu dhex daadsan oo furaashkii iyo shandadii iyo buugaagtii iyo wax weey birkimooyinkii iyo wixiiba ay saa kugu kala daadsan yihiin aanu ahayn oo yahay qol saa alaabta ugu laalaabantayo dhagtahay qodobka labaad wuxuu yiri qolku waa inuu yahay qol caafimaad ahaan u nabad qaba haddii wax caafimaadkii qofkii wax weeyaan iyo nadaafadii qofka dhibaato ku ah iyaguna uma fiicna qodobka saddexaad qolku inuu buuq iyo waxyaalaha ka fog yahay qodobka afraad kursiga qofka uu ku fadhiya kursi degan inuu yahay qodobka shanaad waxyaalihii agabka ahaa tusaale cuntada yar fudud oo kale qalinkii kalarka ahaa wax ku calaamadsanay qofku inuu haysto qodobka ugu dambeeya doctorka uu tilmaamay qofku inuu ku dadaalo intaajka iyo wax soo saarka ee aanu ku dadaalin muddada uu fadhiyo yani maxaan fahmaya ku dadaalo laakiin inta fadhiyaan ku dadaalo doctorku halka markuu mariyo wuxuu gudbo qodob ugu magac daray maxaan wax u akhriyaan kadib waxa uu tilmaamay akhriska dadku inuu kala duwan yahay sababta kala duwan sana ay tahay baahiyahoodu inay kala duwan yihiin akhrisyadii buu haddana ciwaan u sii galayo wuxuu yiri akhriska koobaad ee dadku ay sameeyaan waxa weeye akhriska loo yaqaan madadaaleysiga ama tasliyada dad 70% dadka wax ka mid ah wax akhriyaan waxay wax u akhriyaan inay isku dajiyaan oo ku nastaan kaasina uma baahna buuri agab fara badan uma baahna inkastoo aanu wax faa'iido ah ka marnay qodobka labaad ama akhriska labaad akhris qof wax u akhriyay inuu xog helo
kani waa mid caalamka islaamka aad ugu faafsan buu yidhi waayo waxa caan ah qofku inuu inta badan ku dadaalo inuu habka yare ugu fududeeyo wax ku heli karayo inuu wax weeyaan ku socdo qodobka saddexaad ama akhriska saddexaad wax loo akhriyo qofku inuu wax u akhriyo qaacidadiisa fahanka ama fahamku inuu u ballaadho waa ta xagga faa'iidada markii la eegayo nafciga iyo waxtarka ugu badan xagga dadka akhristayaasha marka la sheegayna ugu yar halkaa markuu u gudmarayay ayuu haddana wuxuu u gudbay haddii taasi ahayd noocyada dadka wax akhriya wuxuu u gudbay akhriska laftirkiisa noocyadiisa markaasuu kow ka dhigay qiraa'a ikhtishaafiya oo ah in uu qofku wax ku ogaanayo akhris uu qofku wax ku ogaanayo kadib habka buugaagta loo iibsanayo bartaa ku tilmaamay markaasuu wuxuu tilmaamay inaanay buugaagta ciwaanada quruxda badan leh inaanay ina tagin talooyin buugaagta lagu iibsan kara buu keenay oo ay ka mid tahay qofku inuu contactiga ama faharista aw akhriyo inay ka mid tahay inuu referensiga iyo tixraaca buugaagta qofkan wax ka soo qoray inuu eego ama masaabirta ay ka mid tahay summary-ga yar ama khulaasada mulakhaska soo koobidda yar ee buugga ku taala buugaagta qaar baa leh xagga hore ama xagga dambe kaga yaalo soo koobid yar oo ka hadlaysa buuggani waxa uu yahay inuu qofku akhriyo qodobka afraad ee buugga lagu iibsan karo waxaa ka mid ah buu yidhi inuu xaashadihiisa qaar awba akhriyaba intaa doctoorku marka uu ka gudbay oo akhriska labaad wuxuu ku tilmaamay akhriska degdega ah degdegood intuu leegyahayna kolba waxay ku xiran tahay xogta meesha ku taalla dabcan waxyaaluhu ku fiican yihiin waxaa ka mid ah akhriska degdegaay inuu nidaamsan yahay qofku aanu odhanaynin oo aanu ka soo qaadaynin meeshii wax weeyaan au marayay meel aan ahayn dowladaha qaar baa muhiimadiisa ogaaday kadibna dowrooyin iyo korsiyo tababaro iyo aqoon kororsiyo bay sameeyeen ay ka mid tahay qofku markuu akhriska wado inuu gacanta saa u raaciyo meesha uu akhriyo akhriska saddexaad doctoorku waxa uu ka dhigay akhriskan qofka ardayda jaamacadaha waxa ku jira oo kale markay buugga qorayaan kaasuu ka dhigay dadana wuxuu keenay iyada laftirkeeda buugaagtii au qofku u noqonayay buu laba u qaybiyey buugaag ama kutub inta badan danaysa arrimaha cilmiga oo xidhiidh la leh aqoonta iyo kuwa aan aqoonta xidhiidh la lahayno sida buugaagta sheekooyinka oo kale iyo waxyaalahaas akhriska ugu dambeeya ama aan dhahay midi ka dambeeyo wuxuu ka dhigay akhriska au taxliili ku magacaabay taxliiligu waxa weeye akhris au qofka wax akhrisanaya u soconayo oo ujeedkiisu uu yahay inuu ku saxo qofka akhristaha ah qofka qoraha ah oo meelaha qoraagu ku gaabiyey au soo helo kadibna isagu uu buuxiyo meelahaas u hagaajiyo waxaa ka mid a marka wuxuu u gudbay qodob ugu magac daray astaamaha akhristaha wanaagsan astaamaha akhristaha wanaagsan wuxuu qodobka koowaad ka dhigay in akhristaha wanaagsan uu yahay ka buugga uu akhriyay meesha uu gaabiska ka galay ee uu ku gaabinayo mid isagu buuxiya oo de uu garanaya qofku meesha u baahan in dib loogu noqdo meesha u baahan in la faahfaahiye isagu halka ka faa'iideysta qodobka labaad inuu akhriska u sabro dadkeenii wanaagsanaayo hore ee aqoon-yahanka iyo ummadani ilaahay ku badbaadiyey waxay ahayn dad aad ugu sabra akhriska iyo aqoonta iyo ummadda bedelitaankeeda taasoo ay ka dhimbiil qaadanayaan oo iyaguna ay ka qaateen nebiyadii iyagana ilaahay subxana wa tacaala waxaa ku yidhi wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu markii la weydiiyey thomas addison ninkii leerhka ikhtiraacay markii la weydiiyey lagu yihi aqoonta nooga waran wuxuu aqoonta boqolkiiba 99 waxa weeyaan dhididkaaga boqolkiiba halna waxa weeyaan ilhaam iyo ilaahay inuu kugu caawiyo oo kuu furo inta markaan ka nimaadno qodobka saddexaad ee uu tilmaamay doctorku waxa weeyaan akhristaha wanaagsan inuu yahay kan awoodda u leh inuu ka jawaabo thaqaafadda ummadiisa iyo casrigiisa iyo xilligiisa taa waxaa ka mid a markaa qofku inuu takhasusaadka dadka iyo dadku waxa ay doonayaan in uu wax ka akhriyo waxa ka mid a qofkani markuu wax akhriyo qodob aad muhiim weeye qodobkaas qofkani markuu wax akhriyo qofkan wax qoray de wax ciidda leeg buu kugu soo gudbiyey meesha inuu qarbale ku sameeyo inuu iska hufo inuu iska haadiyo waanu wax kasta ummadiisa u soo qaadin waxa jira waxa kala diin tihiin waxa kala culture tihiin kala dhaqan tihiin
inaanu qofku wax kasta iska soo qaadan aw soo qaato wixii ummadiisa anfacay dhowr hadal oo qaaliya buu tilmaamayo wuxuu yidhi u noolow hadal macnihiisu yahay u noolow si karaamadaada u ilaaliso oo wax u akhri u noolow oo u dadaal oo wax u akhri si diintaada aad u ilaaliso intaa markaa uu ka gudbay doctorku wuxuu u galay mowduuc uu sameeyay ciwaan ugu magac daray noocyada buugaagta laftirkooda dabeetana wuxuu yidhi buugaagtu dhowr nooc bay u qaybsan nooca koobaad waa nooc ama chat ka mid ah buugaagta oo aan hal mar la akhriyi karin hadii jeer ardaygu u noqdo oo uu akhriyo marka uu baahi leeyahay sida dictionary-ga buugaagta mawsuucaadka ah waxyaalahaas nooca labaad nooc loo akhriyo qofku inuu tasliyo u akhriyo oo gebigiisa naftiisa uu ku dajiyo oo kaliya kuwa doctorku wuxuu yidhi waxa qurux badan in hal mar la akhriyo saa loo dulmaro qodobka saddexaad ama nooca saddexaad ama chatka saddexaad waa qaar u baahan akhris degan kuwa waxa fiican buu markaa in waxyaalaha muhiimka laga soo khulaaseeyo waxa jirta hadal cajiib oo doctorku halkaa markuu mariyay oo yidhi dad badan inaga naga mid ah waxay isku dayaan inay wax akhriyaan ama wax way akhriyaan wax fara badanna way akhriyaan laakiin akhriskoodu waa akhris aan midho dhal lahayn dadkii waaweynaa ee taariikhda soo marayna akhriskoodu wuu yaraa sidoo kalena midho dhalkoodu wuu badnaa waayo akhriskooda qaabaysnaa oo habaysnaa halkaa markuu mariyay doctorku waxa uu gudbay qaacidooyin ay tahay qofka akhristahay inuu ogaado qaacidada koobaad in uu qofku marka uu wax akhriyayo uu ogaado qofkan qoraaga ah ee buugga lahi meesha waxa uu inagula wadaaga waa aragtidiisa anagu marka aan akhriyano qofkan qoraaga meesha waxaan ku qoray waxaan u akhriyanaa waxa meesha uu noogu sheegay wixii annagana anfacayna ka qaadano markaan waxaa ka qaadana kadib annaga waxaan inaan naloo sharaxin yacni qof baa buugga soo akhristay adiguna waad akhrisatay intuu kuu yimaado qofka inaanu ku odhan halkaa akhristuhu markuu marayay qoraagu sidaa saas uga jeeda ee aad ku tidhaahdo hay adiga ka fahmay sidaas anuna si kale aan ka fahmo saa ah qodobka waxa weeyaan labaad luuqaddu iyo afku waa gudbiye taagdaran sidee qof baa buug qoray erey buu adeegsaday sibuu u jeeday wuxuu u jeeday qaab loo adeegsaday ereygan oo caanka ah isla waddanka qofka qoraaga ah oo ku noolaa kadib buuggii mudduu joogay qof akhristaha baa helay muddadii iyadoo xilliga la qoray muddo badan laga soo wareegay oo laga yimi ay ka soo wareegtay kadib ereygii waxa uu u fahmay qofkii akhristaha ahaa macnihii loo isticmaali jiray isla xilligan oo wax akhrisanay mana aha dabcan macnahan qoraagu ku u jeedaayay waa xilligii uu noolaa dabcan marka isbedelada erayada ku dhacaya waxay noqdeen kuwa saameyn weyn ku yeelanaya ujeedkii uu u qoray qoraagu buugga iyo fahamka uu ka qaaday akhristu inay iskhilaafaan ay isfahmi waayaan kadibna qofkii qoraaga ahaa mushkiladii uu islahaa xalli ay badhib iyo dhiiqaa wacgaha la galay kusii noqoto waxaa qurux badan markaa doctorku sida uu tilmaamayo inuu qofku aad iyo aad ugu dadaalo haddii ilaahay badankeeda leeyahay luqada oo wax ku akhriyo hadduu english wax ku akhriyo in uu waxa weeyaan aad luqada ingiliishka ugu dadaaliyo erayadeeda hadduu carabi wax ku akhriyayna sidoo kale qodobka saddexaad ee qaacidada ah ee ay muhiim tahay in aynu ogaano isagana si aan u fahanno buugga aynu akhriyano waxaa lagu taliyaa doctorkuna uu tilmaamay oo ku taliyaa in qofkani buuggan uu qoray markuu qorayay meelaha uu u noqday ama buugaagta uu u noqday in aynu akhrino oo qofku uu isha mariya akhristaha ah qodobka afraad ee doctorka uu tilmaamay akhrisku ama waxa laga maarmaan ah buuri in akhriskaagu uu noqdo akhris taxliili ah yani buug kasta oo aad akhriyayso inaad la socoto meelaha uu ku gaabiyey inaad la socoto meelaha uu ka tegey inaad la socoto meelaha lagaga fiican yahay oo aad hoosta ka calaamadsato waxaabay noqon kartaaba meel adigu bulshada aad uga faa'iidayso oo ayaamaha soo socda ay noqotaba meelaha adigu aad ugu wacantay guntiga gabagabadii waxa uu isku dayey ama andhehe uu keenay doctorku isweydiino ay muhiim tahay qofka akhristaha inuu isweydiiyo kow qof kasta oo qoraa ah markuu buugga qorayo cid buu maskaxda ku hayaa ciddaasaa saameyn weyn ku lahayd iyagaa buugga u qoraya
iyagu la hadlaya dadkaasuu sawiranaya dad garaadkoodu meel joogo maankoodu iyo maskaxdoodu meel joogto qofka markaa akhristaha inuu isweydiiyo tan anugu ma ka mid ahay dadka buuggu la hadlayo mise waan ka sarreeya ama isaga iga sarreeya waan ka hooseeya qodobka labaad ee muhiimka tahay qofkan aan buuggiisa akhriyayo xagee buu ku abtirsadaa yacni qof baa tusaale ahaan wuxuu akhriyayaa buug fiqi ah war ninkan aan buuggiisa akhriyayo ma fiqiga shaaficigaa buu haystaa ma fiqiga maalikigaaba ma fiqiga xanaabilada ma fiqiga xanafiyada sidoo kale aqoonta kale waa aqoon iyaduna noocaas oo kale buug baan akhrisanayaa cilmu nafsi ah ninkan qoray ma wax cilmu nafsigan aan akhriyay psychology-gan ma waxa weeyaan wixii uu ugu yaqaanay ee looga dambeyn jiray mise waa wax uu dadka la wadaago waa waxa weeyaan aqoonta guud ee dadku ay u leeyihiin oo u leeyahay waxa jirta meelo kale oo ku fiican si markaan ogaado waxa uu ku fiican yahay meesha uu ku abtirsado aan aad ugu ixtiraamo waxa uu ku fiican yahay inta uu buugga ka dhex sheegay ya meelaha kalena aan ka soo qaado inuu dadkiisa kala mid yahay su'aasha saddexaad ee ay muhiim tahay inuu qofku isweydiiyo war buuggan aan akhriyay intee in leeg baan ka fahmay intaasoo buug baan dhabayn karana laakiin waa muhiim inuu qofku isweydiiyo war buugga aan akhriyay maxaan ka faa'iiday laba qodob baa la isu weydiin karaa waxaad ka faa'iiday buugga kow waxyaalihii qaacidooyinka ahaa ee buugga aad ku aragtay in adigu tusaale u keento qodobka labaad inaad buugga intaad iska laabto aad soo khulaasayso soo koobto bal waxa uu ka hadlayo buuggan haddii ilaahay badankeeda leeyahay qodobka afraad ee doctorku uu su'aasha ku soo koobay waxa weeyaan waxa uu yiri akhristaha fiicani ama aan akhrista qofka qoraaga ah marka uu buugga qorayo dhibaatooyin buugga ku xalinaya waxa dhacda inuu marar badan qoraagu isaga laftirkiisu mushkilad ku dhex sheego buugga u baahan in la xalliyo qoraaga fiicani marka ama qoraaga fiicani waa ka keena dhibaatooyin fara badan oo u baahan in la xalliyo qaarna xalliya marka inuu akhristuhu la socdo in buugga uu akhriyaya dhib kasta aanu xallinayn ee isaga laftirkiisa dhib u baahan in laga xalliyo loogu dhex tegi doono qoraagu ilaahay ha xifdiye waxa uu guntii iyo gabagabadii tilmaamay ciwaan ugu magac daray in lala sheekaysto oo lala hadlo qofka qoraaga ah qaab nooceeya loola hadlaya waxa uu tilmaamay inay jiraan laba qaab ama laba dad oo wax akhrista oo xunxun qolada koobaad qofkan kaatibka ah ama qoraaga ah waxba kuma diidayaan wax alle iyo wax kasta way jecel yihiin way rabaan way ya way jecel yihiin oo wax weeyaan waxay u aaminsan yihiin wax kasta inuu saxay ayay u haystaan qoladaas dee ma fiicno oo qofkani waxyaalo fara badan oo buugga ka mida buu ku gafay oo garab maraya waa muhiim qofka inaad tiraahdo xaggaas waa lagaga wacan yahay waan ka tegaya waan dhaafaya qodobka waxa weeyaan labaad ama dadka labaad waxa weeyaan dad wax akhriya oo wax u akhriyay ujeedka wax u akhriyay uu yahay in qofka akhristaha ay qabsadaan waxaan soo sheegnay akhriska markuu doctorku qaybiyey inuu u kala qaybiyey 5 qaybood 4 bay soo sheegnay akhriska ugu dambeeya waa qiraa'o iyo akhris la dhaho mixwariya waxa weeye akhriska uu akhriyayo qofku marka haddii ilaahay badankeeda leeyahay aw takhasus ku jiro ama uu rabo inuu maadadan iyo shaygan ku takhasuso haddaba waxa jira tallaabooyin loo raaco akhriska takhasuska ah ee qofku uu shaygan u akhriyayo inuu ka takhasuso ku fiicnaado qof baa raba inuu ku fiicnaado fiqiga qof baa raba inuu ku fiicnaado cilmiga taariikhda qof baa raba inuu ku fiicnaado cilmiga social study-ga kadib akhriska noocee ah baa looga baahan inuu sameeyo si uu ugu fiicnaado waxa uu doonayo inuu ku takhasuso kow waxa la rabaa buu doctorku inaad ka bilowdo buugaagta ka hadlaysa cilmigan iyo fiilkan si guud sharax guud ka bixinas waxyaalaha qeexitaanada ah waxyaalaha kala qaybinta ah ee uu sameynayo loo qaybiyo inta la joogo cilmigan yani hordhacyada buugaagta ka hadlo hordhaca cilmigan in aad ka bilowdo qodobka labaad ee doctorku uu tilmaamay inuu qofku soo qaato buugaag wax weyn oo guda ballaaran ka hadlaya laakiin chapterro iyo cutubyo
ka mid ah ay ka hadlayaan isla shayga uu doonayo inuu ku takhasuso kadibna uu ka akhriyo shayga uu rabo inuu ku takhasuso. qodobka saddexaad oo qodobka ugu dambeeya ah xogta qofku uu akhriyayo inuu u qaybiyo su'aalihii hadeer aan soo marnay oo markuu meesha marayo uu dhaho anigu ma ahay qofka loogu talagalay buugan ee ciduu la hadlay. waad isgaranaysaa markaas inaad tahay dadkii buugan loo qoray inaad ahayn. qodobka labaad ama su'aalihii dee saas ugu wado waxaa ka mid ahaa war qofkan intee in leeg buu fahmay waxaan u akhriyay. halkaas inta ka dambaysa doctorku wuxuu ku soo qaadanaya in yar oo ah waxa aan soo sheegnay oo dhan inuu hab practical ah ama dhaqangelin ah oo ugu sameeyo waxa aan soo marnay cilmiga taariikhda la dhaho. halkaas ayaan waxaan ku soo gabagabeynay gorfaynta iyo soo koobidda buuggii ahaa alqiraa'atu almuthmira ama akhriska midho dhalka leh ee uu qoray dr cabdulkariim bakaar. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha xifdiye. aad iyo aad u mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.